waxaan arkay iyadoo gubanayso oo maxay ahayd dabkii wada haysto dharkeeda dhan dabka wada haysto marka waa dareemi kartaa qof gubanaya markaa aragtid markii u horeysay marka sidaan uga dami karo falankeedan galay waana ku gubtay laftirkeyga waana ka damiyay aakhirkii dabka markaa ayada ah qolka dhexdiisa dabka saarnaay ama dabka ka muuqday intuu la ekaay qolka uu gubanayay ilaa kor dabka xoogaa waa gaaray maxay ahayd alaabta dhanna way gubanaysaa maxaa xigay markii aad la kulantay ayadoo gubanayso maxaa xigay waxaa xigay intii karaankeyga aan awoodo inaan dabkii ka damiyo gacanta la galo dharkii gubanaya ka siibo maxay ahayd soo wado banaanka keeno kadibna maxay ahayd ilmihii soo bixiyo banaanka aan keeno kadibna maxay ahayd dad irid aan ka furay meesha soo istaagay la yiri dhar maxay xijaab u soo gali oo orday xijaabana u soo galiyay intaa waxay ka dambeeyay waxaan la kulmay hanjabaado maxay dad oo ii hanjabaya oo lagu dilayaa oo ku dilaynaa wax saas la kulmay marka meesha igu dambeysay baaniga markii aad aragtay ayada oo gubanayso waa soo bixiyay baa tiri soo bixintaada inteed gaarsiisay ilaa iridda banaanka keenay kadib maxaad samaysay kadibna carruurtii soo daabulay banaanka keenay ayagana carruurtii baad u laabatay banaanka keenay carruurta xaggay ku sugnaayeen carruurtii qolkooda jiifkay ku jireen wayna hordayeen carruurta waxaa tilmaamaysaa in qolkooda jiifka ay ku jireen oo ay hurdaayeen siday kugu sahlanaatay inaad qolkaa asaga ah carruurta ay jiifaan aad ugu gashay wax kasta horta waxaa ka daran maxay ahayd dabka ma u jeedaysid waayo ilma dee qolkan ku jiraan aad og tahay oo u bareeri kartaa wax kasta marka qolka ilmaha ay ku jireenna ma ahayn qolka gubanaya qol kale uu ahay sidaa darteeda qolka ilmaha u galay ugana soo bixiyay banaankan u keenay qolka ilmaha soo ma ahayn qol xiran oo u xirnaa ayaga markay hurdaayeen ay xirteen maya waa laabnay qolka laakiin soo bixintaadii carruurta aad soo bixisay ee aad banaanka keentay luul xaggay ku sugneed luul way taagneed meeshay taagneed haaskii luul waa ay taagneed meeshay taagneed ayadii iyo carruurta markaad isu keentay korkeeda ma dabaa saarnaay mase dab la-aan uu ahaa macnaha ma waxbaa ka gubanayay ama ha ahaado maqaarkeeda ama korkeeda ama dharkeeda wax gubanayay miyaa markaa jiray wax gubanaya ma jirin waxaad sheegtay waxaan ka damiyey dab dul saarnaay luul dabkaa luul dul saarnaay ka damintiisa mar haddaad adiga iyo ayada aad aheedeen dadkii qolka ku jiray maxaad u isticmaashay daminta damintii markii u horeysay gacanta horta la galay ayadiya gacmaha soo qabtay sida qolka uga soo bixinaa ku dadaalay iridii markaan keenay dharkii gubanayaan ka bixiyay dabcan jirkeeda ma gubanan ee dharka ugu jira gubanayay dabka wada qabsada dharkii ka bixiyay aniga waa ku gubtay sanka waa ka gubtay ilaa gudaha waa ka gubtay gacmihii waa ka gubtay sidoo kale dhagaha waa ka gubtay intaasna hadee maana u jeedin dhibkii soo gaaray laakiin sida ugu dimi lahaa falankeedan ku jiray waxaad muujisay sababta keentay dabka kaaga dhacay gacanaha sanka afka iyo dhegta inuu ahaa damin aad daminaysay luul aad la tacaalaysay wax kale oo aad u adeegsatid qolku ma lahayn miya wax kale oo u adeegsado waxaa jiray maro weynaa jirtay oo markii dambe ku gambiyey dabkiina sidaas oo uga damay
hawada macna maxaa xigay markii aad bannaanka keentay ayada iyo caruurtii maxaad u sheegtay maxaad tiri xaggay kuugu dambeysay ayada caruurta bannaanka markaan keenay fikraddeedu waxay ahayd gaarigayga oo geerishka ku jira inaan soo qaato gabadha xaaskayga ku qaado isbitaalka ku geeyo laakiin intaas dhicin dabcan meesha gabadha xaaskayga eheladeeda deganaay gabadhooda gubanaysa marka arkaana kolley caray igula soo kor dhaceen ayagoo ii hanjabayo maxay ahayd oo ku dilaynaa ay leeyahay adiga qaab walba ila hadlaayo sidaa darteed maxay naftiisii weyday gaarigayga waa soo qaatay marka meeshaan iigu dambeysay xaaskayga allah u naxariisto imise sanaad deganeedeen guriga dabka uu ka dhacay 2 bilood ya 2 bilood 2 bilood xaaskaaga luul imisa sano ayaad isqabteen sanada ma gaareen waa 6 bilood iyo bar ya 6 bilood iyo bar meelahaas isqabno 6 bilood iyo bar ayaad isqabteen 6 bilood iyo bar mar haddaad isqabteen ma ogeed inay uur leedahay may uurkeeda waan ogaay dhibkaas markuu dhacay laakiin habeenkaas dhibka uu dhacay habeenka ka horreysay un bay ii sheegtaba ayna isoo baartay ayna ogaatay ogaanshaha luul inay lahayd uur ayadaa isi soo baartay oo kuu sheegtay haa daawada lagu baaro aan usoo gaday dabcan ayadaa isbaartay waana ii sheegtay okay imisa ayuu gaarayay ma la kulanteen dhakhtar xagga howlahaas oo kale dumarku u qaabilsan ma la kulanteen ma weydiiseen inta usbuuc inta bil uu gaarsiisan yahay urjiifka ma la kulmin soo noqodkaadii sida aad sheegtay markii aad ka soo noqotay garashka ee aad gaariga soo bixisay inteed ka leexatay oo gargaarkii aad rabtay inaad dhammaystirtid ilaa inteed ku soo gaartay ee aad uga leexatay geerishka markaan kasoo tegay dhankan iyo xafadeeda usoo leexday markaan arkay rag badan oo igu soo ordaayo maxay ahayd gacmahana kolley rag caraysan ay ahaayeen oo maxay ahayd markii horena hadalladii la ogaayay dhahay dabcan dhankooda maana soo aadan marka maadaama igu soo ordaayeen dhanka kale ayaan ka baxay marka waxaad maxkamadda horteeda ka qiraysaa ee aad sheegaysaa in aad 6 caruur badbaadisay iyo hooyadood abukaate su'aashaasi maxkamaddu kuma ogola si waafaqsan qodobka 191 ee xeerka habka ciqaabta sababtoo ah waa su'aal afgalis oo jawaabta eedaysanu bixinaya afkaad u gelisay sidaas darteed ka gudub maxkamadduna ma qorayso su'aashaasi si kale haddaa u weydiisanaysid u weydiiso ma istire adiga markii aad ka tagtay ee aad gaarigaada qaadatay ee aad ka leexatay gurmadkii aad samaynaysay ma istire mase ku fikirtay in aad qabatay gurmad samata bixin ah su'aalaha afgaliska ah abukaate sir waa ka reeban tahay si waafaqsan qodobka 191 ee xeerka habka ciqaabta su'aalaha aad weydiinaysid waa su'aalo furan oo caadi ah oo isagu xogto rabo bixin karo su'aalaha afgaliska lagu ma ogolo maadaama aad su'aalaha tooska ah weydiinaysid sana Sid Ali awgaad soo bixinta caruurta ee laga soo saaray qolka markaad ugu galaysay qolka cid soo jeeday miyaa ku jirtay caruurta ma ku jirin caruurta cid soo jeeday waayo habeenka bari sabtiyo kala markay tahay waxbarashay leeyihiin salaada cishaba waa la jiifiyaa caruurta
waxaan filaa maalintaasi inay ahayd maalin sabti ah waaga hadduu baryi lahaa ها diyaarna ay u ahaayeen in shaqooyinkeeda ay qabsadaan adiga iyo lul imise saacaad guriga ka tegi jirteen goormaad si kusoo laaban jirteen waxaan tegi jirnay 11:40 guriga ka tegi jirnay 11 kale maqribana waa soo laaban jirnay xageed aadi jirteen maxkamadda la wadaag airportka ka shaqeynayna labadeenaba ya airportka muqdisho ka shaqeynayna adan cad caruurta waxaan filaa in aad tahay xaafid alqur'aan wax caruurta aad u geysan jirtay xagga waxbarashada ama ha ahaato homeworkaha iskuulka ama ha ahaato xagga dugsiga maxaad ka geysan jirtay caruurta quraanka waa ka dhageysan jiray xitaa macallin uu sameeyay wuxuu imaan jiray maqrib kadib ilmaha cashar ka dhageysan jiray wana bixi jiray marmarka qaarna macallinka uu saymaana ana cashar ka dhageysan jiray okay lul markaad guriga ka soo bixinaysay